waqooyiga Kuuriya waxay dishay sarkaal ka tirsan dalka ay jeerka yihiin siyaasad ahaan ay hayaan ee koonfurta Kuuriya. askar ka tirsan waqooyiga Kuuriya ayaa qabtay oo toogtay sarkaalka kadibna dab suray sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee koonfurta Kuuriya. sarkaalka ayaa la waayay in muddo ah isagoo saarnaa doomaha ilaalada ee xadka u dhaxeeya labada Kuuriya. mar dambe ayaa laga helay biyaha waqooyiga isaga oo la dilay kadibna la gubay. dowladda koonfurta Kuuriya waxay falkan ku tilmaantay mid waxshinimo ah. waa falkii ugu horeeyay ee noociisa ah oo muddo ka dhaca xadka labada Kuuriya. muddooyinkii dambe waxa deganeed xiisada labada dal, iyadoo tan iyo sanadkii tagayna ay tallaabooyin muhiim ah dhanka nabadda u qaadeen dhinacyadu. waqooyiga Kuuriya kamay hadal weli arrintan. waxaa la aaminsan yahay in xukuumadda Pyongyang ay xuduudaha xidhatay isla markaana tooganaysa cid kasta oo isku dayda inay gasho dalkaas. waxay ka fogaanaysaa in xanuunka COVID-19 uu gaadho gudaha dalka maadaama dhaqaalaheedu uu sii liicayay markii horeba dunidana cunaqabateeno laga saaray. Khadar Haybasaab TV. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom